هذا الكاس قاسيني horta waxaan u mahadnaqaynaa guddiga soo dirateen qoladan booyadaha waanu wada hadalay arrinkayaguna ma xuma waxaanu jeclaysanay annaga iyagoo dhan inaanu halkan idinku wada nimaadno oo aynu arrintaas sidii aynu wada hirgelin aanu dhammaanteedba halkan isugu nimaadno inuu ka wada hadallo wixii aanu isla garanayna aanu idiin sheegno marka hore waxa weeyaan haddii aad tihiin ragga booyadaha leh ama wada waxaan filayaa inaad qayb weyn ka tihiin hawsha qarankan loo hayo ee aynu bulshadeena u hayno inaad qayb weyn ka tihiin baanu qiraynaa runtii isla markaana mas-uuliyadda haysaan qiimaha badan ee ah inaad ku waraabisaan qalabkiina iyo gaadiidkiina ummaddiina aad jeceshihiin ee maatida leh waxay idin saaraysaa iyaduna mas-uuliyad qaali ah ayaa isla markaana dushayda ka fuushay dib kasta waan ognahay inaad la soo martaan waxaynu ognahay waddooyinkeenna oo imika wixii ka horreeyey aad iyo aad u xumaa waxaynu ognahay dhibaatada ay idinku hayeen wadda xumidu waxaynu ognahay sida ay idinka jabaan baabuurtu waxaynu ognahay qaaliga ay yihiin qalabka la geliyo baabuurtiinnu oo ay keentay inta badan wadda xumidayna haysay muddooyinkii hore ilaahay xamdigii waynu tashannay haddii aynu nahay ummadda reer somalilan berigii hore waxaynu sugi jirray waxoogaa kiniisadaha yurub laynooga soo ururiyo oo dabeedna marba in yar meel laynoogu sameeyo waxaynu maanta ka garannay inaynu isku tashanno oo dhaqaalaha innagu aynu haysanno ee ilaahayna siiyey iyo nabadda ilaahayna siiyey iyo dawladnimada ilaahayna siiyey inaynu ku darno inaynu wixii jeebkeenna ku jirana wax yar oo aynaan tabin oo aan dhib inagu ahayn intaynu sugayno oo aynu masaajidada iyo shacabkaba ka ururno halka kiniisada laynooga soo ururiyo dadka suuqyada jooga London waxa weeyaan iyo Yurubba inaynu isku tashanaa baynu go'aan ku gaarnay tii waxay keentay waddada u dhaxaysa Hargeysa halka biyaha ka soo dhaamisaan ilaahay baan idinku dhaariyay bishii hore iyo bishan isku mid ma tahay soo lama samaynin soo meel arag baasha madow la dhigay meel kale kama iman waa shilimaadka bixisaan way oo la sugeeyay bay ka timi waxaana rajaynaynaa haddii la yiraahdo iyadoo aydan meel aanu baabuurku shakalkiisu aanu shaqayn oo aanu marna ruuxmin ina ku tagtaan halka biyaha ka soo dhaamisaan taasoo waxay u baahan tahay calool adayg geesinimo iyo deeqsinimo ma diidanin ina cabataan ma diidanin ina dawladdiina u sheegataan ilaa dawladdu malaa'ig ma aha waa la khaldami karaa waxba gafmi karaa waxba si u dhici karaa ma diidanin ina sheegataan oo taa war waxaasuna waa nagu adag yihiin waxaasuna way nagu culusina balnareega xaq baa u leedihiin waana waxa dawladdiinu diyaar u tahay inay la eegto haddii ka badbadinaysan la yiraahdo oo leedii aqal cilina waa ka badbadinaysan daaya haddii ay culays ku tahay in la yiraahdo waa culays loo eego wuxuu dib loo eego waxaan leeyahay maanta ma jiro waxa la igu yiraahdo waan maqnaa 3 casha mudaharaadkii socdo oo booydalkan yahay miyuu jiraa wali nin la xiray oo raggii booyada ahaa ama waday ama mulkiilayaasha xiray miyuu jiraa imika amar baan bixinayaa imika halkii nin imika soo deynayna ninkana waa idin sii deynayna waxay u dhici weyday dawladda waqtina waxbay xidhaa jeelal badan bay leedahay waxay u samaystay inta saldhig magaalada ku taala waqtiga waxa loo sameeyay ninkii khalad galay in lagu xidho waxaanu idinka deynay ee leedin xiri waay ee hadal xul leedin ku oran waay waxa weeye dalkan wuxuu soo maray dadkan dhib fara badan oo baahna xarig wuxuu u baahan yahay in la soo aqal celiyo oo la wada hadlo oo faraha wax la isugu sheego oo aynu wada hadal la isku afgartaaba ayaanu garanay in loo baahan yahay in xarig loo baahan idinkana waxa la idinka baahan yahay haddii la idinka xishoodo la idin ixtiraamo idina ka badbadina muxuu haayay sida aan leenahay aan wada hadallo idina wada hadalkii qaadataan waxaan leeyahay ku soo gabagabeynayaa maanta dalkeenu mudaharaad iyo dhibaato kama bixi karo
ووقتنا مالين ولا مظاهرات لديقى ضد بعدين sababtu waxa weeye waxaan inoo dhamayn qalabkii loogu tala galay in mudaharaadada dadka lagu wabaabiyo dadkeenuna ma yaqaano sida dunida loo dhigo mudaharaad marka la dhamaan ka yimid qaar mudaharaadayaan si dadkii qasaa'idka qaadi jiray wada socdaan qof hadlaya iyo qof xaqin eegaya iyo qof askariga eegaya iyo qof askariga dhagxan la dhacaya midna ma jiro waxaan ku fakaray markaan la joogay ayaan niman booliisowta waxaan ku wada waxaad yeeshaan dar adagoo dhagaxa naga askariga ka ilaaliya oo suuf badan leh ma la heli karaa baan ku yiri oo bal askariga dhagaxa la dhacay inaanu isagu wax noqon oo isna aanu qorigiisa cabaysanin oo buushkaas ku celiyo ma la heli karayaa baan ayaan weydiiyay waxa weeye intii afadhidan dib badan baa dhacday mas'uuliyadeedana sida horaan idinku sheego aakhiriye iftiinkaba qayb baa ku yeelanaysa annaga idinkuba maatidii iyo caruurii waxa loo laayay biyo dumarkeenni waxay la meeraysanayaan jirikaano oo marba xaafad ay u gudbayaan waa dhib badan durbaba saaka qaar bay ka agoogtay arrinta awgeed oo naftu ka baxay inkastoo ay xabad ku dhicin sidii caadada ahayd baawur baa jeeray baawurtii gurmadkeed baa jeeray waxaan idin soo jeedinayaa oo aan odayaashiina ku wada hadalay cabashadiina waa dhageysanayna waa eegayna wixii wax ka qabashada waxbaan ka qabanayna laba guddi baan ku wada hadalay inaan isu soo saarno guddi wasaaradda arrimaha gudaha iyo maaliyadda ah iyo guddi qoladiinan ah weedleyda ah dabeedna la isla eego la isla xisaabiyo wixii dhib ay jira la isla eego arintaasu waxay keeni doontaa inay wanaag ku dhamaato haddii la yiraahdo hawlaha meesha yaala waxa salama huraana oo laga maarmaana dadkeenu haddii uu sidan ku sii jiro aynu dawladda iyo aynu waraabo weyn qolooyinkeena boodaha leh dib badan baa ka iman karta waxa laga yaabaa baawurkaygu nabad gelin waxa laga yaabaa boodaas inay nabad gelin ayaa iman karaysa oo dadku haddii uu gadoodo waxa laga yaabaa boodun gartaan wartaas meel boodin bay noo shubi jirtay biyo ma ku jiraan maya arbaash soo qabta biyo ma ku jiraan ha diseedo hore isaga socotay si daay waxaan markaa walaalayaal leeyahay hawlaheeni inagu degan baynu ka wada hadlaynaa dhibaatadiina iyo cabashadiina waanu eegaynaa idinkana waxaan idinka codsanaynaa imika laga bilaabo in muxuu ahaayay booyadihii aad dhaqaajisaan in muxuu ahaayay dadkiinii waraabisaan inaan dhibaatadu inta ay naga sii badan inaanay maanta diyaar miyaynu nahay dad dambe oo dhinta miyaynu diyaar u nahay miyaynu diyaar u nahay carruurteennii oo manoo ilaahay boodaha intaa leegina siiyey iyadoon cidinayna caawin dadkeenna oon ku eegna maydin la tahay annagana waxaynala tahay wixii cabasho ah inaanaan idinkaga kicin yaanu idinla eegno laakiin dee inagoo degan oo ka wada hadlayna nin guddidii ka mid ahaa baa igu yidhi dee wasiir haddii adimka iska dhaqaajino bahalaha hadhow xaggeen u kacayna ها waxa weeye waa qowl sharaf qowlkayga ilaahay mooyaane ciidaanu kaga dambeeyna ma jirto dawlad baan nahay sababna uu kalifay inaan been la idin sheegana ma jirto anaana ka mas'uul arintaas wasiir dakhiliya ana iga imanaysan idinkuna guudiina 5 iyo 5 baynu soo saaraynaa wixii macquul ah weyn isleegin idinkuna waxa sameeysan dadkiini u dhaamiya fasaxa dhibaatooyin taayay naga badan labadina qolob weyn dhaafisa hadii muxuu ahay qolo saddexaad oo qoladaynu ka wada hadlaynaa ee biyaha cabbi jirtay ee muddo xareeraadka ahayd hadday inta ku sii jiraan dib badan baa ka iman karay dibkaana dibanu diyaar u nahay maanta maaha dib u baahan inaynu isku dhacno maaha dib u baahan inaynu muxuu ahay dhibaato ka timaado maaha dib maanta u baahan magaaladeena aynu wanaag iyo nabadgelyada iyo quruxda aynu arkayna inaynu wax u yeelan maaha waxaynu ka wada hadlaynaa waa waxoogaa yaro sanaatiya wax dhibaato ay keenayaan ma jiraan ballantaana anaa idiin qaaday guddidiina soo samaysta dadkiinana waraabiya aakhiradiina iyo iftiinkiina iyo muxuu ahay caruurtiinana muxuu ahay u tudha wixii hawla ee jira adduunyadu maalin maaha bari wixii laga bilaabo ay keena guddidii idinkuna sidaa
hawlgala aynu isu ducayno mas'uuliyiin baatiin dadkeena iyo ummadeena aan ilaalino annaguna dawladdiina maanu nahay wax alla wax xumaan oo dhibiyo dhibaato idin ogol lahay ma jirto wixii idinku adag annaga idin leegin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أفهمك كبوده قيب تنبري سيدا وزير كودين شيء هي قلبك تبع waxaan u mahadnaqaynaa horta halkan ta ka dhacday waxa weeye annaga ilaa xad waxaan ka taxadirnay wixii wax keenaya dhigashada aanu dhiganayna waxaan ugu kalifay cabashada oo in badan haysay bisha 16 baanu gudbinay daaqilgaanu ku hagaajinay intaas oo meelood baanu dhignay ka bacdi ayaanu dhignay horta 3 shay yaal qodobadii aanu dhignay cabashada ha wasiirka markii saaka xalay u yimi oo ma hadnaqayna halkan dawladda dhowr baanu kala kulanay isku mana jiraan dadkan la kulanay wasaaradda daaqiliga iyo taliyaha qaybta janaka booliska labadaas horta way naga mudan yihiin waayo sida ay qof waliba kugu qaabilo iyaad ugu mahadnaqaysaa dawladda kale hayga hadho arrimeeni wasiirku cabashadaan u soo jeedin waxay ahayd cashuurtan uu kordhiyay dawladda hoose 2,000 aynu bixinaa kuma jiraan sideedii baynu bixinaa ta kale aynu ka dhignay booyadahan inay nagu badnaydeen biyahaynu qiimaha siinaan nagu yar yahay wasiirow nala xisaabiyo nala eega uu naga aqbalay oo waxaanu qaadi karno dawladdu ana saarto meel laga maral waayo waa uu aqbalay wasiirku wuxuu aqbalay in 5 nin oo guddiya iyo 5 wasaaradaha oo wasiirku nagu ballan qaado la soo saaro inta aynu dabeedna aanay inta la saarin inaan lacag cashuura laynaga qaadin intaynu iskaga imanayno inaan kaantarooladu ila wayna soo guda gashay wasiirkaana dee xagee laga marayaa baan intaynu iskaga imanayno wax lacag weydiinaya ma jiro oo xaqii qiimaha tii aynu ka hadlaynay badnaanteedii وافنتي سما وسوق قادني تاني وزيرك وكاسو waxaan ku celiyay taliya qaybtan diiba urtanka booliska diiba labada control baan dhigay abuu waraaqla taada wasiir waxa ii sameeyay waxaadna wax ku yeeleen waa maxay ii shaambadee waraaq inaan inta aan wada hadlayno inaan cashuur lay weydiin way wali suway kara jadonta ka dhacaysa taana wuu kalsooni soo dhigay baabu isagoo iga dhigay kalsooni tiina wuu aqbalay qorbu intuu diibay ayaa xogayntiisu u diibay oo inuu ka nimo wasiir taana adiga sidii isku soo galino waa adaa ka balqay waana isku mahadsantay waxaynu yeelaynaa markii caynka tahay hadaynu inuu boodi waa shaqo tagayna waanaynu aroorina aad iyo aadna anaga uga taxadirnay dhibaatayna aanay dhicin waxaanu uga taxadirnay banaanka ilaahay baanu dhiganay tuugaa geliya cid kasta gelaysa maanta waa dawladdu miyay dhaami wada hadda idinku dhigateen intan yar ila lagu rogman maaye ayaanu dawladdiinii dhamayd miyay dhaami wada waa wasiirkii daaqiliga xalay yimi xalay ka yimi maantana waa ka dhameeyay isku ma jiraan dadku qof walba nasiisa loo ogaado waanu ku mahadsan yahay. Assalaamu calaykum.